السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dad qaybtan waxaan ugu talagalnay barashada dadka Soomaaliga ku hadla ee baranaya luqadda afka Ingiriisiga. Erayadan aan ku baran doono halkan waxaan ugu magac daray erayada ku jira maanta wararka caalamka. taasoo qayb ka noqon doonta barnaamijka aan idiin samayn doono Aflax taasoo aanu idiin soo xuli doono qaar ka mid ah erayada maalinta ku jira wararka oo idin bari doono macnaheeda iyo sida loo isticmaalo erayadaas. Erayadan maanta waxaanu ka soo qaadnay qoraal ku soo baxa jariirad ka mid ah jariiradaha ka soo baxa wadanka Mareykanka. waxa uuna ka hadlayay ololaha siyaasadeed ee u dhaxeeya qaar ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee wadanka Mareykanka. marka waa 10 eray 10ka erayga ugu horeeya oo aanu baran doono waxa weeye erayga intensify. eraygani af Soomaali ahaan waxa uu ku noqdaa xoojin ama kordhin. haddii tusaale ahaan aad rabtid inaad tiraahdid he is intensifying his campaign, waxa uu xoojiyay ololihii uu ku jiray. I am intensifying my studies because I have a test coming up. waxaan xoojinayaa barashadayda sababtoo tahay waxaan leeyahay imtixaan bishan dhamaadkeeda. taasi waa intensify. mararka qaarkood markay ka waramayaan dagaalada meelaha uu ka socdo waxay yiraahdeen the conflict or the fight has been intensified ama intense fighting. dagaal xoogan ama kordhay intensify. erayga ku xiga aan baranayno waxa weeye stand off. marka laga hadlayo siyaasadda oo kale politicalka ayaa badanaa loo isticmaalaa. eraygani waa ismariwaa. waxaa jirta eray kale oo la yiraahdo deadlock. labada qolo oo iska soo horjeeda oo isku haysta siyaasadda markii ay wax ku heshiin waayaan sida badanaa ka dhacda siyaasiyiinta Soomaalida. stand off baa la yiraahdaa ismariwaa. macnaheedu qolo ka tanaasuleysa oo compromise sameynaysa ma jirto. marka waxaa la yiraahdaa stand off waa ismariwaa ama barbardhac ismariwaa. erayga ku xiga aanu baran doono waxa weeye erayga tough. waa adag, adkaysi badan. adag ama adkaysi badan. haddii waxaa jira eray ay yiraahdaan dadka Mareykanka oo ah he's very tough guy. waa qof adag ama qof adkaysi badan ama qof shuruudihiisa sharcigiisu adag yihiin. is very tough guy. taas waa taa. eraygaasi waa adjective, waa sifeeye. waxa uu sifeeyaa marka magaca ama hadba wixii aad ka hadlaysid. erayga ku xiga aanu baranayno waxa weeye spark. waa noun, waa magac, waa dhimbil weeye. waa dhimbil. qaraxa markuu dhaco ma wax walba sparkling dhimbilo. erayga ku xiga waxa weeye campaign. erayga campaign waa labo, midna waa magac midna waa ficil. kanaase ahaatee waa ficil, waa campaign. I am campaigning, waxaan u ololeynayaa. I am campaigning to get a support. waxaan u campaign garaynayaa si aan ugu helo taageere. campaign, erayga campaign waa olole. erayga ku xiga oo aanu baranayno waxa weeye shift. waa ficil. eraygaasi waxa weeye isbedel. dadka qaarkood waa maqashaan shift waa isbedel. xilli markii waxa la sameynayo wixii la bedelo ama jihadii loo socdo markii mahana jiha kale loo jeesto. isbedel dhanka kale ah waa isbedel. erayga ku xiga aan baranayno waxa weeye battle. eraygaasi waa dagaal. battle
dagaal dagaal dagaalku dabcan wuxuu noqdaa mid gacanta la isula tago iyo mid afka ah kan in case kan uu ka hadlay arrintan waxa weeye dabcan dagaal siyaasadeed oo u dhaxeeya laba qof spend ereyga ku xiga spend waa ficil waa qarash gareyn I spend $30 today waxaan spend gareeyay ama aan qarash gareeyay $30 maanta I spent a lot of money yesterday shalay waxaan qarash gareeyay lacag badan spend ereyga ku xiga aanu baranayno waxa weeye compare ereyga compare waa isbarbardhig I want to compare to these two cell phones waxaan rabaa inaan isu barbardhigo labadan cell phone I want to compare these two cell phones waxaan rabaa inaan isu barbardhigo labadan cell phone waa isbarbardhig haddaba ereyada aanu baranay caawa 10ka erey ee ku jiray warka qaar kamida waxaa la yiraahdaa waa verb oo ah ficil qaar kamida waa noun oo ah magac qaar kamidana waa adjectives oo sifeeyana halkan waxaan markaan idinku hayaa qaar kamida kuwa aanu ka hadalnay ee ahaa ficilka ficil walba ficilada ingiriisiga way isbedelaan isticmaalkooda waxayna u kala baxaan dhowr waxyaalood so grammarka ayaad aad ugu baran doontaa ereyga marka intensify waa ficilkii caadiga ahaa haddaad leedahay marka hadduu xoogsaday maxaad leedahay intensifying I am intensifying the fight right now haddaan xoojinayaa dagaalka right now hadda intensified haddii la yiraahdana waa la xoojiye weeye intensified iyadana waa past participle iyo past tensekeedaba waa isku mid oo waa intensified okay erey walba markaad luqadda ingiriisiga baranaysa waxaa wanaagsan inaad baratid sida loo isticmaalo markuu joogo xilli walba xilligiisa marka la soo dhaafay iyo mustaqbalka badanaa waxaa lagu daraa shall ama will ama baa lagu daraa for example I will campaign ama I will be campaigning labada ficil marka waa laba ficil oo ah ficil aan la gaarin xilligiisa oo mustaqbal ah laakiin waxaa la isticmaalaysaa kuwan baa la isticmaali doontaa okay ereyga ku xigo aan baranayno asagana waxaa weeye campaign waxaan nidhaahdo waa olole waana ficil campaigning bay noqotaa haddii aad leedahay haddaan campaign garaynaya I am in campaigning in this city waxaan ka ololeynayaa magaaladan campaigned wuu ka ololeeyey campaigned wuu ka ololeeyey so laba saasay u kala baxaan shift isbedelka oo qofka meeshuu u socday wixii laga bedelayo I am changing my shift oo kale shiftiga aan ku jiro xilliga ayaan bedelaya okay shifting haddaad bedelaysaa oo waa wax hadda markaa jooga shifted waa bedeshay past participle keedana waa la mid way spend qarash garayntii I spend a lot of money every day waxaan qarash gareeyaa lacag badan maalin walba okay haddaad markaa qarash garaynaysidna maxaa oranaysaa I am spending waxaan qarash garaynayaa lot of money lacag badan so suuqaad joogtaa oo kale so markaliyo baad iskuatay inaad lacag badan kugu baxayso waxaad oranaysaa I am spending lot of money waxaan qarash garaynayaa lacag badan okay bal dib aan ugu noqono ereyadaas anagoo mid haddana u macnayn doono ereyga intensify waa kordhin ama xoojin stand off waa ismariwaa tough waa adag spark waa dhimbilo campaign sidaasna sidoo kale waa olole shift waa isbedel battle waa dagaal spend waa qarash garayn compare waa isu barbardhigid inta ku xigtana waxaa weeye sida uu ficilada ay isu bedelaan barnaamijkani waa qaybta aan u bixinay
words in the news erayada ku jira wararka caalamka ee maanta waxaana ka soo qaaday jaraa'id kamida jaraa'idada wadankan Mareykanka ka soo baxa. Okay, intaanu ku kulmi doona barnaamijkan iyo wixii dheeraada waxaad nagala soo xiriirtaan Aflax Online School. sidaas oo kalena bishan February waxaanu bilownay casharada dadka gaarka raba inay u bartaan luqadda Ingiriiska. dadka jecel inay daawadaan laakiin mar walba waa idin banaanta inaad ku soo dhawaataan channelka Aflax Online. intaanu ku kulmi doona barnaamijka ku xiga waa aniga oo Ahmed waxaan idinkaga tagayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.